السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن هل كاد نقد داونيسان وشانل كأرض عاشق قف كيد الله اللين وساحبكين عبد الله محمد عبد CMC مركلة يا موقع العصب. استونا قدونا أصحاب تقييمها بدن فضلا أنت أنا موقع كجودك جن هديات نقول عصب تهاي سبسكرايب له جنال كا كمبرال كفروسي موقع لنا عادوا نقطة تقف كجوري سوجاران سيدوك كلا لايك نقول يرجلي سين شير جري مقال كسيو أصحابنا نجارو وحي ترى يتصالون نقول وذاك قيبتا كومنتيجا وتكون مع سنتها هيدا وشذا يلا صوتك مقال ذي وهجاك مقال كنا ما أنتم وحنقصوا قادم دونا عذر نادر أو كدعاء آدمها وحنقصوا قادم دونا هويني اللي قوم جعابو شين أو شيكتي إن أين مقلكرين عد كرجع warbaahinta ayaa laga soo wariyay sheeko haweeney ka soo toostay hurdo oo la kulantay in ay maqli karin codka ninkeeda kadib waxa uu cadaatay markii dambe in ayna maqli karin guud ahaan codadka ragga haweeneydan oo Shiinees ah oo lagu magacaabo Chen ayaa sheegtay in uu dhibaato dhab ah ku hayo cudurkan gaar ahaan markii ay xaqiijisay dhakhtarad ku takhasustay cudurrada ENT-ga ee ku dhaca sanka dhagaha iyo cunaha in ay gabi ahaanba lumisay awoodii ay ku maqli lahayd codadka ragga khabiiradii baartay Chen ayaa xaqiijisay waraysi ay siisay wargeyska Daily Mail in bukaankeeda ay la ildaran tahay cudur aad u dhif ah oo loo yaqaano reverse slope hearing loss wuxuu helaa 12,000 ee qofoodba hal qof sida ay sheegtay xarunta lagu magacaabo Thick Pain Hearing Center cudurkan lagu magacaabo Meniere oo asiiba gudaha dhagaha ayaa sababa inuu keeno vertigo iyo tinnitus sababahaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee cudurkan naadirka ah keena wahagaag intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkii yaraa ayaan uga hadlaynay cudurrada dhif iyo naadirka ah ee aan ku soo qaadanay haweeneyda lagu magacaabo Chen intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa saaxiibkiin Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC iyo channelka Orda Caashiq oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.